waddankan Soomaaliya leh Soomaaliyana ka shaqeynaa Soomaaliyana u adeegayso Soomaaliyana u fikirayso wixii intaas ka baxsan waa inaan cagaheena wax ku doonana dhibaato waad la socotaan siyaasaddu marba meel ay aadaysa hadda siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya iskuma dhul doosho walaalaheen xagee garuun ku dhuftaan xagee bur ku dhuftaan xagee dhagax ka tuuraan annagoo aamusnaantaas ayaan door bidnay taasaanan wadeennaa maxaa yeelay haddii wixii ka xanaajiyaba ay xanaaqsan yihiin ilaa ay qaboobaanay degaan waa inaa walaalkaa u miirisaa annaga siyaasad noocaas ayaan ku dhaqmaynaa dowlad ahaan waana dhibaysaa markaan aragna maamul goboleedyadiioo ninkii burka noo haystay gurigiisa ku shiraay meelay ku shiraan ma aysan waayin waana dhibaysaa laakiin haddana waxaan kor u qaadqaadayna ma aha iyagaas laftirkooda maraa caqli u soo bixi doonaa oo ay gurigooda hawshooda ku qabsan doonaan boqol meeloo wanaagsan ay qabaan ay ku shiri karaan waxay meeshaas ugu shireen waa uun qaabdarraas aan anigu shakhsiyan isleeyahay marka waxaan ku soo koobayaa reer Baardheere ha guulaystaan horumarka Baardheere ilaahay ha taabaqaado ilaahay ha hormariyo annagana kuwii Baardheere iyo meel kastoo kale u adeego oo saamaantu qoraxdu taagan ugu adeegayno